السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. صلى اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. رب يسر ولا تعسر وأعنا يا كريم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك يا لطيف الدارين آمين. waxaan u tahniyadeynayaa walaalahayga Soomaaliyeed meel walba adduunka ay kala joogaan. waxaan ugu tahniyadeynayaa dhalashadii nabigeena calayhi salaatu wassalaam. waxaan ku jirnaa bishii barakeysneed oo ahaa mawlidkii nabigeena calayhi salaatu wassalaam. aan ognahay nabigeena calayhi salaatu wassalaam inuu dhashay bishan Rabiicul Awwal 12keed, yani sanadkii lagu magacaabi jiray sanadkii fiilka ama sanadkii maroodiga, markii soo weerareen Maka 50 habeen kadib. marka maanta maalmahan waxaan ku jirnaa maalmihii loo ixtifaalayay mawlidkii sayidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. arinta ku saabsan mawlidka nabiga calayhi salaatu wassalaam waxaan ka xumahay sanad walba inay noqoto waxyaabo laga doodo, isku bedesho meeshii laga sheekeyn lahaa maxabadiisii iyo salligiisii ay noqoto dood cilmiyeed ama dood aan cilmi xataa mararka qaarkood aysan ku dhisnayn. sidaa daraadeed marka maanta waxaan jeclaystay marka ugu horeysa inaan ka hadlo mawlidka nabiga calayhi salaatu wassalaam. diinteena islaamka ma ogoshahay? maxaase daliil u ah? marka dhowr daliil ayaan soo qaadan doonaa insha allahu tacaala oo cadaynaysa inay bannaan tahay nabigeena calayhi salaam dhalashadiisa in loo ixtifaalo. daliilka ugu horeeya oo ah xadiiskii nabigeena calayhi salaatu wassalaam kuwa cadaynaya isaga laftirkiisa khayru khalqillah sallallahu alayhi wasallam inuu u dabaaldegay dhalashadiisa. nabigeena calayhi salaatu wassalaam wuxuu soomi jiray maalinta isniinta. asxaabta markii ay weydiiyeen ay ku yiraahdeen maalinta isniinta maxaa u soomaysaa, wuxuu yiri waa maalintii aan dhashay, waana maalintii waxyiga igu soo degay. marka waxyaabaha nabigeena u soomay maalinta isniinta waxay ahayd dhalashadiisii maadaama uu dhashay maalinta isniinta. taa waa mid. daliisha labaad ee cadaynaysa nabigeena calayhi salaam in loo ixtifaali karo wixii sanad guuraha inay noqon karto, nabigeena markuu yimid Madiina soo wariyay Imaam Muslim saxiixiisa, wuxuu arkay yahuudda oo soomaysay maalinta 10aad ee bisha Muharram. markuu weydiiyeen waxay yiraahdeen waxaan u soonnaa waa maalintii nabi Muuse calayhi salaatu wassalaam ilaahay badbaadiyay oo ka badbaadiyay Fircawn. marka kuma hadcelin aan kuma hadcelinayna ilaahay oo noo badbaadiyay nabi Muuse ayaan u soomaynaa. nabigeena marka muusan oran wax bidcad samayseen ama waa qaldantihiin, laakiin wuxuu yiri annagaaba xaq idinkaaga leh nabi Muuse. nabiga isagaaba soomay, asxaabtan wuxuu amray inay soomaan. taa marka waxay cadaysay sanad guuro ay ahayd maalintii ku beegan tahay maalinta 10aad ee Muharram ee ku beegnayd markuu nabi Muuse calayhi salaam ilaahay badbaadiyay. marka farxadaas ayuu nabigeena calayhi salaatu wassalaam u soomay. xadiiska kale saddexaad xadiiskii soo wariyay Imaam Muslim laga soo wariyay Abu Sa'id al-Khudri, wuxuu yiri Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu wuxuu ugu yiri nabiga calayhi salaam wuxuu soo galay mar majlis ay asxaabta ay wada fadhiyaan, qaar asxaabta kamid ah. markaasuu ku yiri maxaa idin fariisiyay halkan? markaas ay yiraahdeen naxmadu yani ilaahan u mahad celinaynaa, waxaan ugu mahad celinaynaa inuu ma aragtay na hanuuniyay, diinta nagu hanuuniyay oona nagu kaanimcay, wamanna calayna bika, adiga ilaahayna kaa siiyey. yani nimcooyinka ilaahayna siiyaan ugu mahad celinayna waxa adigoo ilaahayna kaa siiyey. taas ayaan u fadhinaa. nabiga calayhi salaam wuxuu yiri allahi ma ajlasukum illa dak, taas mooyaan wax kalmaad u fariisteen. markaasay dhaarteen asxaabtii may arrintaas kaliya aan u fadhinaa. marka nabiga wuxuu ku yiri idinkuguma dhaarinin kalsooni daro aan idinkugu qabo, laakiin waxaa idinkugu dhaaray inaan idin sheego ilaahayna inuu malaa'igtiisa idinkugu faanayo oo leeyahay bal fiiriya يعني ummadeeda muuminiinta inay wada fariisteen ay igu mahad celinayaan nicmada islaamka, iguna mahad celinayaan inaan u soo diray nabi maxamed calayhi salaatu wassalaam. taas waa tii tan afraad xadiiska uu soo wariyay Imaam al-Bukhari iyo Imaam Abu Abdurrazzaq iyo sidoo kale Imaam Xaafid ibn Hajar al-Asqalani Fathul Bari ku soo qaatay oo ah nabigeena adeerkiisa Abbaas ibn Abdul Muttalib ayaa habeen wuxuu ku riyooday walaalkiis oo ahaa Abu Lahab. Abu Lahab iyo Abbaas waxay labadooduna adeer ay u ahaayeen nabiga calayhi salaatu wassalaam. Abu Lahab markuu geeriyooday ayuu ku riyooday. Abu Lahab waan ognaa quraanka in lagu sheegay ahlu naar inuu yahay oo suurad dhan ay ku soo degtay. markaasuu yiri xaaladaada ka waran, wuxuu yiri khayr kuma nooli,
oo cadaabtii oo maaragtay nabi maxamed adduunka igu sheegay ayaan ku dhex jiraa inta aan ka ahayn oo yiri maalinta isniinta maalin walbo isniin ah waa lay nafisiyaa waan ka nastaa cadaabta maxaa dhacay marka waxaa dhacday maalinta isniinta waa maalintuu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhashay marka wuxuu yiri markuu nabiga dhashay waxa qofka ugu horeeyay ee la kulmay ee nuujisay waxay ahayd adoomad oo iska lahaa Abu Lahab oo la oran jiray Suwayba waa qofta ugu horeysay nabiga nuujisay waa caanihii ugu horeeyay calooshii nabiga ku dhacay waxaa nuujisay qof adoomad ah ee la leeyahay oo Abu Lahab iska lahaa iyadoo faraxsan ay Abu Lahab u timid markaas ugu bishaaraystay walaalkaaga wiil ayaa u dhashay Maxamed ayaa dhashay farxad aan ku farxay dhalashadii nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam iyadiina waan xoreeyay adoontii waan xoreeyay marka maadaama halkaas maalin uu ku farxay dhalashadii nabiga calayhi salaatu wasalaam maalintaas waa loo fududeeyaa cadaabta saadaraad marka imaam Shamsuddin Muhammad ibn Nasir ad-Din ad-Dimashqi rahimahullah wuxuu yiri إذا كان هذا كافرا جاء ذمه كاسدو أهانين قال أنا لقو عيدي لو نقول الشيء بتبت يداه في الجحيم مخلدة سورة تبت يداه نقول الشيء إنه نار الجحيم كوارع أتى أنه في يوم الاثنين دائما وحان الله الشيء معلوم البو اثنين يخفف عنه للسرور بأحمد إن عذابت الله فضل ما دام أكفر حي النبي محمد عليه الصلاة والسلام دل شديسا فما الظن بالعبد الذي كان عمره كورا مركا أدونكي عمريس نولشي سدن كان بأحمد مسرورا ومات موحدا كفر أحسنا نبي محمد عليه الصلاة والسلام خفك وليجيس كفر أحسنا نبي محمد أين جيريود أسوء إلهي رميسان مركا تاستيو أتي أفراد يكو عدينيسي إن لغو فرحداس إن خفك أجر وكهلايو ما أنت صور النبي عليه الصلاة والسلام لشيء ما أركتي أو ما أركتي هدي لسكوي ما أي تهي عيد مسلمين تأوتهي سو كلا waxyaabaha ku cadeynaya nabigan kaleey salaam dhalashadiisa inay banaantahay in la xaflado waxa kamid ah aayadii ahayd qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu waxaad ku tiraahdaa fadligi ilaahay iyo naxariistiisa sida daraadeed ku farxa naxariista ilaahayna waxa kamid ah nabi maxamed kaleey salaatu salaam ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin marka maalintu nabigan kaleey salaam dhashay in loo farxo waa naxariis noo dhalatay oo lagu farxo waxay kamid tahay يعني وحياه القرآن كان كريم كأيدي تنلحاد النبي عليه السلام حيري من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة خفكي إسلامك سنة ودو ناكسن سنة دو ناكسن كي ودو سماع أجر كيس أيو هلي وحون هلي كي كعمل فلي أجر كيس إلى يوم القيامة لقاره marka nabigeena dhalashadiisa in la sugu yimaado ee nabiga lagu amaano ee laga sheekeeyo soo ku dhashay taariikhdiisa laga sheekeeyo salligiisana la akhriyo waa sunno wanaagsan kii marka wada u sameeyay ee ka dhigay sanadkii hal habeen la sugu yimaado ama intay doonto ha noqoto waqtiga doonto ha noqoto yaani sunna xasana ayuu qofka marka sameeyay wada fiican ayuu furay soo kale daliisha todobaad ee cadeynayso in nabigeena kaleey salaatu salaam loo ihtifaalo وحاكمت آيدي دهيس يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون دد يهو مؤمنين تأه إلهي أركوع إلهي أسجود ربي جينا عابدة انت اسمايا وافعلوا الخير سمايا الخير خير قرن ألف إلام وللعموم وللاستغراق والشمول يعني حكو عد وحكو البو خير سمايا marka in nabiga kaleey salaam dhalashadiisa la sugu yimaado loo xafladeeyo lagu farxo ma khayr ba mise waa shar waa khayr saadaraadad marka in loo farxo oo ma aragtay la isku tahniyadeeyo waa wax aad iyo aad u fiican daliisha sideedaad ee cadeynaysa inay banaan tahay nabiga kaleey salaam in ihtifaal loo sameeyo waa xadiiskii uu soo wariyay imaam Ahmed ibn Hanbal nabiga kaleey salaam inuu yiri ما رأه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن مؤمنين توحيوا أركان وحو وناكسن إنو يهي إلى حقيسو كوناكسن يهي وحي مؤمنين تو أركان وحي وحن إنو يهي إلى حقيسو كحن يهي مركي أي نقطي إن احتفال لو سمايو النبي قال دلشديس عليه الصلاة والسلام مؤمنين تي مركا جوكتي علماء دي جمهور كوسي أبدين وحي وأركان وحو وناكسن إني تهي wax wanaagsan hadii muuminiintu arkaan ilaa xaqiisu ka wanaagsan yahay culimadii waaweyneed oo dhan caanka ahaa la yaqiinay badankooda ama jamhuurkooda way banaan culimada xaaraantimayso culimo fara lagu tirin karo
laakiin inta ma aragtay banaysay lama tirin karo. laakiin qaar ka mid oo caan ah ayaan magacyadooda soo qaaday. waxaa ka mid dadka baneeyay aimada banaysay amiiru lmu'miniina fi lxadiis imaam xaafid ibn xajar alcasqalaani oo la wada yaqaano ee qoray kitaabkii fatxu lbaari. sidoo kale imaam taajuddiin asubki, imaam ashawkani, imaam abu shama almaqdisi, imaam asakhaawi, imaam ibn alxajar alhaythami, imaam jalaal الدين السيوطي, imaam alqasطalaani, imaam abulfaraj ibn اljawzi. aimadaas iyo aimo kale way baneeyeen. aimada baneysay sidoo kale caanka waxaa ka mid ah ee ku abtirsada madrasadii imaam ibnu taymiya, madrasada salafiya. waxaa ka mid imaam ibnu kathiir oo la yaqaano inuu yahay imaam salafi ah, ardada ibnu taymiya ka mid ah. kitaab ayuu alifay, waxaa sheegay xaafid ibn xajar alcasqalaani kitaabkiisa adurar alkaamina. ibnu kathiir wuxuu alifay kitaab oo lagu magacaabo mawlid rasuuli sala allahu calayhi wasalam, oo u sameeyey mawliidka in ma aragtay ku ammaanaya nabigeena. marka wuxuu ku leeyahay ibnu xajar meelo badan adduunka uu ka gaaray waagaas kitaabkaas, oo wuxuu noqday kitaab la ammaano. ardada ibnu taymiya waxaa ka mid ahaa xaafid dahabi, ninka qoray siir aclaam nubala. xaafid dahabi markuu ka sheekeynayey melik almudafar, waa ninkii boqorkii hore ahaa ee qarnigii afaraad jiray ee baneeyey mawliidka nabiga caleyhi salaatu wasalaam in loo ixtifaalo ma aragtay aada u weynayay. marka wuxuu leeyahay mudafar kaana mudafar الdiin fi الsunnati cala almawlid, yacni mudafar wuxuu ku taagnaa sunno inuu baneeyey mawlidkii nabiga caleyhi salaatu wasalaam. kuma eedayna ma dhihin bidcu ku dhacay, laakiin wuxuu yidhi wuxuu ahaa nin sunno ku taagan ee baneeyey mawlidka. waxaa ka helaysa siir aclaam nubala mujaladka 22aad. waxaa kaloo marka qaar badan maanta laga yaabo daawadayaasheena sharafta leh inay mufaaja'a ama kadis ku noqoto haddii aan iraahdo dadka ammaanay mawliidka nabiga caleyhi salaatu wasalaam in loo ixtifaalo kuna sheegay ajir in laga helayo. waxaa ka mid ahaa shaykhu lislaam axmed ibnu taymiya raximahullah. marar badanna waa sheegay ibnu taymiya aima dadka culamaa salafiyiinta ku abtirsado agtooda, yani wuxuu ka yahay hadalkii sida xadiis oo kale, yani waa sheekh ay ku kalsoon yihiin. ibnu taymiya kitaabkiisa iqtidaa siraat almustaqiim yani wuxuu ku leeyahay qad yuthaabu bacdu annaas calaa ficli lmawlid, dadka qaarkood ajir waxay ka helayaan ficilka ay sameynayaan oo ah mawlidka nabigeena caleyhi salaam. wakadalika maa yuxdithuhu annaas, sidaas waxaa kaloo kamid waxyaaba dadka markaas ay sameynayaan imaa mudaahatan linasaara, ama ha noqoto isku ekeysiin nasaarada fi miilaadi ciisa, iyagoo ugu talagalay maadaama nasaara ay sameeyaan christmaska oo nabi ciise u xafladeeyaan, muslimiintana taas aynay ka tahay. wa imaa maxabatan linabiyi sala allahu calayhi wasalam wa tacdiiman lahu, ama inay ka tahay jacaylkii nabiga caleyhi salaatu wasalaam ay weyneynayaan. marka wuxuu le wallahu ilaahayna qad yusiibuhum calaa hadihi almaxaba, ilahay ajir wuxuu ka siinaa marka kuwa u sameynayay jaceylka nabiga caleyhi salaatu wasalaam. marka annaga haddaan nahay dad muslimiina miyaan u sameynaa ku dayasha nasaara, mise waxaan u sameynaa jaceylka nabiga? haddii nabiga jaceyl aan u qabno daraadis ay tahay, shaykhu lislaam axmed ibnu taymiya wuxuu yihi ajir ay ka helayaan. walijtihaad laa cala albidac, iyo ijtihaadkaas ay sameeyaan ajir ay ka maaha bidcooyin markaas waxay ku dhaceen. yani markii mawlidka la sameynayo haddii bidcooyin meesha ka dhaco, khaladaad haddii ka dhaco, dembigaas dembigi way leeyihiin dadkii khalad ku dhacay. laakiin haddii khaladaad uusan dhicin oo nebi ammaan ay tahay oo dikrullah ay tahay oo nabiga lagu salinayo, siirada nabiga laga sheekeynayo, oo maaragtay wax xaaraam aan la sameynaynin, wax fiican weeyaan. fatacdiimu lmawlid waاtikaaduhu mawsiman qad yafcaluhu bacdu nnaas uu yiri. mawliidka in la weynay dhalashadii nabiga caleyhi salaam lagana dhigo sida ciid oo kale, dadka qaar ka mid a way sameeyeen. wayakuunu lahu fiihi ajrun cadiim, qofkii taas sameeyan wuxuu ka helaya ajir aada u weyn. waa ibnu taymiya lixusni qasdihi, maadaama olojadiisa niyadiisa ay tahay wax wanaagsan. wa tacdiimihi lirasuuli sala allahu calayhi wasalam, iyo weyneyn uu weyneynayo nebi maxamed caleyhi salaatu wassalaam. taa marka aan kasoo tagno, waxay yidhaahdeen dadka diidan mawlidka nabiga caleyhi salaatu wasalaam in loo ixtifaalo, waxay yidhahdeen waa arin bidco ah. bidcadana ma banaana in la sameeyo, sababtoo ah nabigeena caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yiri man axdasa fi amrina hada maa laysa minhu fahuwa rad.
amarkeena diinta kii ku soo daro waxaan diinta ka mid ahayn waa wax lagu celiyey lagama aqbalayo xadiiska marka wuxuu ku cadeeyay yiraahdeen in nabigana ma sameeynin asxaabtiina ma aysan sameeynin khulafaa raashidiintana ma aysan sameeynin gadaal ayaa laga sameeyay marka wax cusub kii ku soo daray diinta wax cusubna lagama aqbalayo taa marka waxa loogu jawaabaa hadduu nabigana oran lahaa man axdasa fi amrina hada fahuwa rad diinteenan kii wax ku soo daro waa lagu celin macquulay noqon lahayd حديث متفق البخاري ومسلم على سلسلة وريان لكن النبي عليه السلام حيري ما ليس منه وحان دين تكمد أهين وحان دين تأصل كل هين كمد أهين تامر كحلوم مع اللغة العربية صفة مؤثرة صفة أو كو عدين سراد إن الله ده يعني دين تانا كي كصدر وحان دين تكمد أهين كايا لو علنا لك واحد دين تكمد يهين لو ما علنا يويان marka in nabigan dhalashadiisa laga sheekeeyo diinta may kamid tahay nabigan in la jeclaado in la amaano in lagu saliiso diinta kama mid ah way kamid tahay marka saadaraad radkii ma noqon karo sababta ma laysa minhu ayaa meesha ku jirta waxaan diinta kamid ahayn laakiin diinta haduu kamid yahay rad ma ah arinta labaad iyadana xoogaa ugu adag ay soo daliishadaan dadka diidan in loo ixtifaalo mawlidka nabigan calayhi salaatu wasalaam waxaa kamid ah xadiis isagana aad iyo aad u adag ha noqoto kii soo wariyey jaabir ibn cabdillah laga soo wariyey oo soo wariyey imaam muslim nabigana calayhi salaam wuxuu yiri ama bacd fa ina khayra alxadiisi kitaab allah wa khayra alhadyi hadyu muxamedin sala allahu calayhi wasalam yani hadal waxa ugu fiican hadalkii ilaahay kitaabkii ilaahay hanuun waxa ugu fiican hanuunkii nabi maxamed وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أمورنا وحا ugu shar badan wixii cusub lagu soo daro waxaan kitaabka iyo sunnadii nabiga ahayn wixii ka baxsan waa wixii wax cusub waxa cusubna waa wax bidca ah wa kull bid'atin dalalah bid'a walbana waa baadinimo wa kull dalalatin fi an-nar riwaayad dhehis way jirtaa iyo xadiiskii Irbaad ibn Saariya isagana soo kale sunan Abi Daawud iyo غيره soo wariyeen wa iyyakum muhdathat al-umur fa inna kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah يعني iska ilaaliyo waxyaabaha cusub sababta wax walba cusub waa bidca walbana waxay ku cadeysay in baadinimo ay tahay marka kul yani waxa loo isticmaalay yiraahdeen ta'miimun shaamil shay general ahaan caam ka wada dhigayo sababta kul haday meesha soo gashay wax walba cusub ayaa noqon kara inay yihiin wax wada bidca ah ilaahina subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri quraanku yiri wallahu bikulli shay'in alim ilaahi wax walba uu og yahay marka kulligi waxa ku caday ta'miim shaamil inuu leeyahay wallahu la yuhibbu kull kafarin athim ilaahi maj'al khaf walbo gaaloobay oo dambiila ah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat nafsad walba waxay kasbatay ee laga oofin doona kullu nafsin dha'iqatul maut nafsad walba way geeriyoon doonta kullu man 'alayha fan wax walba adduunka ku dul noolna way dhamaanayaan saadaraad marka kull haduu yahay ta'miim shaamil weeyaan oo wax ka baxsan karo ma jirto saadaraad kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah bid'a walbana waa baadinimo tahdi an nirahno saas daahirkaas aan u qaadano asxaabtii laftirkooda hadii ay ku dhaceen marka waxyaabo lagu tilmaami karo muhdath ama bid'a oo cusub oo nabigana uusan sameeynin iyagana xukunkooda marka muxuu noqon ilaan xadiiskan uu jiray dhowr xadiis ayaa jirta oo ku cadeynaysa asxaabta qaar kamid ah inay ma aragtay sameeyeen wuxuu nabiga amray xadiiskii nabiga la soo wariyay nin asxaabta kamid ah waxa laga soo wariyay Abdullah ibn Umar wuxuu yiri anagoo nabiga la dukanayna ayaa nin asxaabta kamid ah wuxuu yiri Allahu akbar kabira walhamdulillahi kaseera wa subhanallahi bukratan wa asila هذا الله صير الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا النبي عليه الصلاة والسلام يحير مكيا هذا الكاس كهضلي نيك يحير أنا كهضلي يعني وح عصب ويان أو استو ذكري كدكتي النبي عليه الصلاة والسلام يحير عجبت لها وان لا يغير هذا الكاس صوتها فتحت لها أبواب السماء الباب السماء ده الله فور هذا الكاس كهذا الشيء
muusan oran bidca ku dhacday bidco walbana dalaalo waxa soo wari imaam muslim soo kale xadiiskii abu saciid al-khudri saxaabigii ahaa radiyallahu an uu yiri ayagoo wada socdo ayay ma aragtay xogaa gaajoodeen dad tuulo degan ay ku tageen dadkii ma aysan soo dhaweynin kadibna waxa dhacday ninkii madaxda ahaa inuu qaniino dib qalooc ay yiraahdeen war madaxda naga qaniinay ma idin ku jiraa cid daaweyn karta ama ku tufi karto abu saciid wuxuu yiri nacam uu yiri anaga ku tufi karna laakiin shart maxay tahay shardigaaga xoolan u baahannahay markaas yaro xoolo ku siinayna abu saciid al-khudri marka wuxuu ku akhriyay 7 jeer suuratu al-faatiha markii nabiga u soo xoolaha soo qaatay nabiga u soo laabteen ay nabiga u sheegeen marka يعني inaysan nabiga ka baranin waxa ku ogaanaysa nabiga kaleey salaam wuxuu kiri wama calimta annaha ruqya say ku ogaatay inay daawo tahay faatiha say ku ogaatay faatiha inay daawo tahay yani abu saciid wuxuu la yimid waxa nabiga sameeyay marka xadiiskan waxa soo wariyay tirmidhi iyo tabarani ibn majah oo nabiga kaleey salaam markuu xoolaha ladin siiyay aniga wax iga siiyo yiri isagana soo ugu muujiyo waxay sameeyeen wax fiican inuu yahay uma oosan bidca ku dhacday soo kale xadiiska saddexaad oo laga soo wariyay rifaaca ابن رافع الزرقي وحير النبي أيان لدكانين مركو النبي عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن حمد الناس حاتك كمد أي وحير ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى أدام هذا السكلاء ما هاد علين بدن أو بركة يسن مركز النبي عليه السلام صلاة لقب حويدي يري ياساكو هادلي نيكي صحابي وحير أنا قاكو هادلي يا رسول الله النبي وحو بارك لي ربنا ولك الحمد لكن حمدا كثيرا طيب مباركا في صحابك أي كسو كردي النبي عليه السلام حيري وحان أركي دار إي صدن ملائك أو كتر تميس كي أخوري لها كلمة داس حديثك حصور إمام البخاري قف كي أغوري كلمة دا خوري مركا حتى إيرا هذا علماء وحي كوانتهي كلمة دان ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه صدني أفر حرف النبي قال حيري دار إي صدن ملائك يعني waxa laga yaabaa inay ahayn 34 malaa'ig mid walba xaraf inuu ma aragtay u dhigmay malag walba marka xadiiska waxa soo wariyay bukhari wuxuu ku cadeeyay saxaabigan wax dheeraad u soo kordhiyay oo nabigana uusan oran nabigana ka ogolaaday daliisha afraad nin asxaabta kamid ahaa ee qolyo madax u ahaa wuxuu caado ka dhigtay salaada markuu dukanayo markuu faatiha iyo suurad kala akhriyo mar walba wuxuu raacsin jiray qul huwallahu ahad suurad qul huwallahu ahad asxaab markuu la yaabeen waxay raacaan qul huwallahu nagu dushi ama suurada kale nagu dishay laakiin maxaa dhacay maya taasda igu ogolaataan waa idinku hadii kalena xir imaamka la raadsada nabiga arinta markuu u sheegay wuxuu yiri hal la weydiyo maxaa ku kallifay markii la weydiyo xiri waxay ka sheegay waa sifadii ilaahay yiri suuradaas waana jeclahay nabiga wuxuu yiri markuu u sheegay ilaahay inuu jecel yahay qafkaas muusan oran bidca la timid soo kale xadiiskii khubayb ibn adi saxaabigii ahaa ee markii mushrikiinta rabeen inay dilaan ka codsaday laba rakac inuu dukado نبينا وقر تاس يعني وحين نقطي خفك شهيد كما نكون نقول إن لو ركع كذا خبيب أيانا بلاوي حديث كسوك بلال بن رباح نبينا عليه الصلاة والسلام وحير بلال وحن مخلي صعد كاغا عين جنة كدح مخلي إما حد جنة نوجه مرتي مركز بلال يري يا رسول الله عادة وحن كدكتي مركي أن مسخول قلا إن ويسخاته مركان ويسخاتنا لو ركع إن كذا waxuu nabiga u sheegayna ma ahayn markaas uu nabiga ku yiri haddaan ogaaday marka sababta aad nooga hormartay taa daraad wax jannada nooga hormartay tan todobaad soo kale xadiiskii Muaadh ibn Jabal radiyallahu an saxaabigi ahaa marka isagana wuxuu arkay markii nabiga salaad dushinay asxaabta qaar ay soo daahan way weydiin jireen rakacadee la marayo tan saddexaad tan labaad mid walba ku ay ku soo bilaabi jiray marka ama gadaal ka soo gaar ama marka waxa arkay nabiga marka salaada dhamay mid uu rukuucsan mid uu sujuudsan mid gaar oo dukanay Muaadh marka wuxuu yiri aniga yiri waxaan la qabanayaa nabiga sidoo uu yahay markaan soo galo haduu rukuucsan waa la rukuuc haduu sujuudsan waa la sujuudi meeshu joog ayaan uga qaban markuu salaada dhamayaan si dhameystiri intii leega baahnaa nabiga markii loo sheegay wuxuu yiri Muaadh wuxuu idin sameeyay sunna fiican ee ku dayada Muaadh yaani nabiga kaleey salaatu wasalaam uu dhiirgeliyay marka saadaradeed ayaa waxa timid yani cadeyn oo ah tii hore mid ka duban ilaan kullu bid'atin waa la yiri asxaabtii nabiga asagoo nool ayeen waxyaabahan la yimaadeen
haddii ay og yihiin nabiga inuu wax walbo bidca ah cusub oo isaga mooyaane يعني أما إله أوحيون أما النبي سمين أنا لسمين كرن أصحابته ما سمين لهن أرنتان هدي أي خلدنت هي دين تأصل كلها النبي وكريبي لها النبي مروح أركي نين خرح التاجن مسن أن فدينا التاجن مركي لو يديو حيرة النبي شاجن أصحابته ني كان لا وحب الله كخاذ إنه صامو إنه سن هدلن إنه تاجنا هذا إنه سن هرسنين أو فريسنين النبي عليه السلام حيري حفريستو يري ha hadlo ha harsado soonkiisan ha dhammaystiro soonka waa wax sunno ah oo diinta ku sharciyan ku banaan laakiin waxyaabahan kale dhan wax cusub weeyaan isaga la yimid aan diintana asal ku lahayn marka daraadda nabiga kaleey salaam wixii diinta asal ku lahayn uu ku raacay waxaan asal ku lahayn kuma raacin marka waxa iimaanaysa hada aayadii ama naski aha kull bid'atin dalala kullan waxaan niri ta'miimun shaamil weeyaan wax ma aragtay kulli wixii dhan wada saameynaayo marka culimada waxay yiraahdeen marna wuu noqdaa tacmiim shaamil marna wuxuu noqdaa caamun makhsuus wax caam ah oo laakiin khaas noqon karo wax u gaar ah marka imaam shaafici qaar kamid waxay yiraahdeen ay ghalibul bid'ada badankeed ayaa waxay tahay wax lunsan bidcooyinka dhamma wada ah sababtoo ah ilaahay subxaanahu wa ta'ala meelo badan ayuu quraanku sheegay oo يعني نوع دي كل إنسان وضع أهين وضع يعني شامل إنه وضع أهين إلى وحيري فلما نسوا ما ذكروا فتحنا عليهم أبواب كل شيء يعني مركي اللوين وحي لحسوسي وحان أفرني شيء والبا الباب ديس كما أهين الباب دي نحريس الله مفرن الباب دي توبض الله مفرن كل شيء نوالير شيء والبا marka يعني تعميم يعني مخصوص وين عام او لكن wax gaar ah waxa loo furay albaabadii fasaadka albaabadii ma aragto xuma ilaahi wuxuu yiri thumma aatayna Muusa alkitaaba tamaman ala alladhi ahsana wa tafsilan likulli shay kadibna Muusa waxaan siinay kitaabki oo taam yeelay tamaamka aha iyo ala alladhi ahsan wa tafsilan likulli shay walbana ku faahfaahsan shay walba ku faahfaahsana oo wuxuu ku faahfaahsana wixii shariicada wixii ah diiniyan ما أهين وحيابها الدنيا ذكر الكسافسة مركة تعميم مخصوص ويا علم المنطق بركو حنكو بران صور كلي صور جزئي صور يعني جدار أو معركة هرري أو كلي كوي هراء صوقان شامل وكلام واحد جزئي خايب كخار كمد وقال إلهي وحيري وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء يعني نبي سليمان دتك حكيري يا أيها الناس ددي هو وحنا لبري shimbiraha luqadooda wax walbana waana la siiyay marka wax walba imaam ibn Jarir Tabari wuxuu yiri wax walba ku haboon maamulkii dawladda ayaa wax laga siiyay maaha adduunka dhan wax walba in la siiyay ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri markuu ka sheekeynay qawm hud tudammiru kull shay'in bi amri rabbiha dawaashi oo soo diray shay walba way baabi'inaysay ibn Jarir Tabari مفسرين توشاقن نبي هود كم أوسن دمن إقام كم مؤمنين كم دمن بوريه كم أيسن دمن قريه كم أيسن دمن لكن دتكي لا صدر كلي أي باب إنيس مركب تعميم مخصوص عام أو مخصوص أو وين تجار الله تعالى قال سعد راد مركب فإن كل محدثة بدعة مركي لي هذا كل يعني وحين ناخذ تعميم مخصوص أي غالب المحدثة بدعة ويان سعد راد مركب علماء بدن وحاركيسها بدعة دي كلا قيبي عالمك ugu horay aan soo qaadana waxa weeyaan imaam العلماء oo ah imaam الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه wuxuu leeyahay albid'atu bid'atan bid'ada waa laba bid'atu mahmuuda bid'o oo wanaagsan wa bid'atu madmuuma iyo bid'a xun fama waafaqa as-sunnah fa huwa mahmuud bid'adi waafaqsan sunnada yani raad kula diinta waa bid'a fiican وما خالف وما أحدث وخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهو البدعة الضالة لكن وحي عصب للي ماذا إيه خلاف سن كتابك أما خلاف سن سنة ذي نبي عليه الصلاة والسلام توقف ولا لسه إيه خلاف سن سنة ذي النبي عليه الصلاة والسلام أما خلاف سن إجماعي أما خلاف سن راد أما خلاف سن كتابك أما السنة ذي أما خلاف سن يعني أثر لصوري
taa waxay noqotaa bidca lunsan. يعني بدعة سي نقطة الباطنة إن خلاف سنات كهر إيمان سوى كتابك السنة دي. وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئا من ذلك فهو محمود. وحي خير العسبوني سي للي يمد أو أنت أصلا خلاف سنين وبدعة أمانا أو فيعا. إمام الخطابي وحليه فإن هذا يعني حديث كامل شرحه كل بدعة ضلالة خاص في بعض الأمور وحقار إيهي أمور تخار كما كتابك اسمه عالم السنن مجلد كأفراد. وكل شيء أحدث على غير أصل من أصول الدين وعلى غير عياره فهو ضال. شيء والبو أو لا عسبونيسي عساب لليمد الدين تنا أصل بكل هين أنا لو قياس قارن كرين ووحل سن. وأما ما كان منها مبنيا على قواعد الأصول ومردودا إليها فليس ببدعة ولا ضلالة. يعني وحي لكن قواعد كان دين دور كله أنا ما عرفت لو سو علين كرو بدعة يعني أو سن معها. إمام أبو شام المقدسي وشيخي إمام النووي وحليه فالبدعة الحسنة متفق على جواز فعلها. بدعة وناكسن وحالسكو وافقي إن بنانتها إن لسماء وحالسكو وافقي علماء وحالسكو وافقدين بدعة وناكسن إن بنانتها إن لسماء وهي كل مبتدع موافق لقواعد الشريعة وحو تاسن وحوين وحو البدعة أو وافقسن شريعة قاعدة أدكسنين غير مخالف لشيء منها شريعة أو خلاف سنين. حتى ومركب مولد كالنبي عليه السلام إن لقى الشيء إلى شديسة أما لو احتفاله شريعة من خلاف سنتها بس وافق سنتها ووافق سنتها النبي أصدقوا نال أي الله أماني. كان ليسنجر حسان بن ثابت الكويري خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وحلو أبور أدوان عيب أدوان عيب لا وحاب ليس إن لقوا أبور ساعدك الجعلات فأجمل منك لم ترى قط عيني خفكا قرح بدن ولي إنه كما أرق وأفضل منك لم تلد النساء ونكا فضل بدن دمرك ما دلي دونان مركزات درادت يعني وحليه هي بدعة يعني وبدعة شريعتها دي بخلاف سنين يعني وبدعة بنان. إمام سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام السجن بدعة الشن أيو أخيبي والشن قواعد الدين تساقش بدعة واجبة بدعة سنة بدعة حرامة بدعة كراهية بدعة بنان. بدعة واجب كأ سيدا ما أركتي علومتا لو باهيها إن دينتي لو إفلالية قرآنكي إن هالكتاب لو جمعي أبو بكر وسميه عمرنا وما أركتي لرأي قاسل يمد يو علمي كان أصول الفقه علمي حديثة وحديثة لو حفظي علومتا صدقا وواجب بدعة مجري واجب النبي عليه السلام ضعيف يو قوي يو صحيح يو وحلهم مجري جري حتى علم التجويد كان مجري جرين مد متصل مد منفصل إياه وحي لمدها مجري جرين وحصلنا مركا وحي سوق لها من باب البدع مركا وحي الواجب كل وحو كله وحلوبا نيجا شرع هذا علمي كان إن الحفظ مواجب ها ودوين كله حفظين كرا بدعة ها هاتي وبدعة واجبة شيء كان مصنبة ها يعني وضدي مركا لو حفظين كرا سيدا مثلا دتك إن أي برتان شريعة الإسلامك إن جامعة الله لسه وبدعة لكن سنة مستحبة واجي النبي مجري جن جامعة إسكولات مجري جري مرك إسكولات كان لسه وحي لمد علوم الدين يقولوا برناي وبدعة ولكن مستحبة وحبنان أو ما عرفتي وح مستحبة ويان بدعة وحاجته محرمة ويري يعني وح ما عرفتي محرم مثلا إلهي سبحانه وتعالى خلق يسنا وأكيسيسد صفاتك إلهي ابن آدم كنا أسكو أكيسيسد وبدعة أو محرمة إلهي سمين النبي عليه الصلاة والسلام مو أصنّو شيء إلهي إنه أجنه إله كتبتك لأنه مادن أرمها سكلا إيوه حاجرة بدعة كراهية سيدو حير مساجد إن القرحية وحلمت أها إيوه بدعة جائزة خفك إنه أمرك توسع كسماء راشينكي أرنت أمرك وحاسوك الكوافقي أئمة بدن سيد إمام القرافي إمام النووي يعني حوليه هذا عام مخصوص يعني حديث كامركو شرحه وكل محدث بدعة عام أو لكن قار الله تعالى قال والمراد وحنولوجيا ده غالب البدع بدعة بدن كذا قال العلماء وحير العلماء وحير هذين البدعة 5 أقسام بدعة شن أي أخيب سنتا مركزات رادت وحركة إمام نووي إنه ما أركتي قبي تي شن تأهيد إمام القرطبي رحمه الله كتاب المفهم
شرح مسلم شرح صحيح مسلم وحوليه حقيقة البدعة ما أبدأ وافتتح عن غير أصل شرعي. يعني بدعة حقيقة وحوين وح للي يمد أو لبي لابي أيون دين الشرع أصل كلها هام لدين تو أصل كلها عن أهان هدي لك دين أصل كلها هذا هاي بدعة دي حرام تأدمن وخنيسة. ابن حجر العسقلاني سجن حكوليه ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام. يعني بدعة مركو شرح حديث كان كل محدثة بدعة يعني حكوليه وحي لعسبونيسي وشرع ودب عن كل هين شرع ما يل أنسان كسر قلينين تا يا لقوا مقعوا بدعة. مفاجأة ذا كلام مركدنا مرة بعد أن كسر الله وانا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تيها روحان شاقني إنه أماني ويري أجر أي كهلا يدك موليد كالنبي سميناي هديك تهي محبة النبي تان لواد ما أنت مفاجأة كنت هيدتك كأبتر صدى شيخ الإسلام ابن تيمية السجن حوليه وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة. بدعة والبو أيسان أهان وح واجبة أما أيسان أهان بدعة سنة تا أيا وحاها بدعة سيئة بدعة حن وهي ضلالة باتفاق المسلمين. تاسمع تي بعض يقولوا معي ضلالة أهد مسلمين سيسكوافقين. ومن قال في بعض البدع إنها بدعة حسنة خفكي بدعوين كخار كمد إيراده بدعة حسنة أهنا فإنما ذلك إذا قام دليل شرعي وحي حسنة بدعة سنهون كرتان مركيلوها لدليل شرعي شيء قاس وجرى لك وددي لامر لها يا بدعة عصبة تامركه بدعة حسنة أو وافقصا شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا قام دليل شرعي أنها مستحبة دليل شرعي الله يستوحى أنه السنية مرك الشيء واجب وددي دي لامر مرك ابن تيمية وحكوا عدي فدودان وحين كنت على تاويجي مجلد كسدحات بيج كسدح بقول لحدا إلا يعني كل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة بدعة والبؤس واجبنا أهين مستحبنا أهين يعني مركع وحكوا عدي إنا جرت بدعة واجبة إنا جرت بدعة مستحبة لكن ضدك خارقات هذا سوق أبتر أورنا كل بدعة ضلال بدعة والبنا ضلالة وين ما بدعة واجبة جرت يري بدعة سنة تاس مركب مون خكوري بدعة سيئة وبدعة ما أركت مستحبة بنان. وحكوا سيدر أرضيجيسة ابن رجب الحنبلي السجن كتاب كيس جامع العلوم والحكم وكشرح هاي 40 كنووي وحوله والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه. بدعة وحالة للجيدة بدعة محرم كأه وحي لعسبونيسيو أو شريعتنا أن أصل كلهين يعني شريعتها دي أصل كلها هاي وبدعة بنان. أما ما كان له أصل من الشرع لكن وحي شرع هذا أصل كله يدل عليه وكتساي كاسيغاس إن شرع هذا قبتي شرع وشيغاس إن لسمي لكن وددي سام هبكي معركتي وي لو مري فليس ببدعة شرعا تا شرعها بدعة ما بقى هو يري وإن كان بدعة لغة هدي حتى بدعة لغة أهان كويه شيء هو شيء عصب بدعة ولغة أهان لك شرع أهان بدعة ما هو يري. سوكر إمام حجة الإسلام أبي حامد الغزالي حوليه فليس كل ما ابتدع منهيا عنه وحول بو بدعاء ما هو حنا قال الراوي بل المنهي عنه بدعة تضاد السنة ثابتة وحنا قال الراوي بدعاء كهر إيمانيس السنة سوغان وترفع أمرا من الشرع أمر شرع هذا كمد أهنا مارك سراء قاديس مارك وحا أركيسا إلا طبعا علماء إنا أدين سو قادي ما أركتي كهذا الشيء بدعاء إنا أكلا خيف سنتو خارنا كنت تنوامين الله بدعاء جائزة بدعة يعني حسنة بدعة سيئة سيد إمام الشافعي وحي لمد أهل بدعة وناكسن بدعة حن بدعة وناكسن وحي الشرع هذا أصل كله وودوين الله سمي الله مرة وحفنان صاد راد وحا أركيسا أنا مركي شعبان كلا جار فضيلة شعبان علماء ويك هذا منابرته ويك خد بيان وحال جاري بش رجب وحال هذا الإسراء والمعراج وحال سو جاري بش رمضان كي فضل جيس أيا لقى الشكاية marka maxaa noo diiday markii la soo gaaro bisha Rabiic al-awwal inaan ka sheekayno siiradii nabigeena iyo fadligiisa iyo wanaagiisa iyo salligiisa inaan badsano marka saadaraadad marka waxaa noo cadaatay culimadii waaweyneed ee caanka ahaa inay qabeen inay banaan tahay in ihtifaal loo sameeyo mawlidkii nabigeena calayhi salaatu wassalaam waxaa inoo cadaatay culimadii waaweyneed oo ma aragtay asalka salafiyada ahayd inaysan ka soo horjeedin ihtifaalka mawlidka
waxaan idin sheegay xaafid الذهبي arday ibnu taymiya ahaa waxaan idin sheegay ibnu rajab alxambali waxaan idin sheegay ibnu kathiir iyo waxaan idin sheegay shaykh alislaam ibnu taymiya marka dadka ku abtirsanaya ibnu taymiya xaggee ka keeneen sidaa daraaddeed marka xataa ibnu taymiya iyo ardaydiisa ma qabina gadaal dadkii ka yimid way jiraan culammadii hore qaar yaroo faraha lagu tiriyo iska shaad ah laakiin si loo badnaa waxay in la wada qabay mawliidka inuu bannaan yahay loona xafladayn jiray laakiin waa arrintaas waxaa xoogga saaray dadka gadaal ka yimid oo ugu horeeya sheekhooda ayagan ku abtirsadaan sheekh maxamed ibn cabdilwahaab 200 sano kale inta laga soo wareegay marka ibn cabdilwahaab ama qolyihiis gruubkiisa lagu magacaabo wahaabiya wahaabiyada ayaa qabta mawliidka inuu bidco yahay laakiin salafiyada oo ibnu taymiya laftirkiisa ma qabo saan idin soo sheegnay ardadiisa marka qaybta keliya wahaabiyada oo iyagana laga yaabo 5% inay yihiin muslimiinta markii loo barbar dhigo ayaa qabta inay bidco tahay soo kale bidcadan inay laba u kala baxdo maxmuud iyo xasan iyo sayi'ana waxaa qaba ardadii ibnu taymiya laftirkiisa iyo xaafid ibnu rajab alxambali saan idin soo sheegay haddaba marka waxaa noo caddaatay adilada banaynayso mawliidka nebiga in la sameeyo inay ka adag tahay kuwaan maaragtay oranayo mawliidka nebiga ma banaana taasna ay jahl ay tahay calaa kulli xaal marka arrinta markii heerkaas gaartana waxa ugu weyn aan oran karno waa wax la isku khilaafsan yahay qaacidada muslimiinta u degsan waxa weeyaan laa inkaara fi lijtihaad waxa ijtihaad hadduu yimaado munkar waay lama oran karo qofkii murtaax ku ah mawliidka inaysan banaaneen yacni xoraa tahay anaga ma oran waa sunno in la sameeyo mana oran waa waajib laakiin waxaan oran caado bannaan weeyaan sideedaba yani waxaan ognahay qawaaciddu inay tahay cibaadaadka wixii ku saabsan atawaquf in daliil loo helo cibaadada wixii ku saabsan axkaamtana atacliil ciladii in la ogaado wixii ku saabsan caadaadka dhaqanka wixii laga dhigtana inay tahay aljawaaz inay bannaan tahay tan marka ma waxay soo galaysaa cibaadaadka may soo galaysaa mise axkaamta soo galaysaa mise caadaadka ciid yani caado weeyaan caado waxaa laga dhigtay in laisku yimaado oo ma aragtay markaas laga sheekay dhalashadii nabiga sida ayba xataa qolyaha wahaabiyiinta caado ay ka dhigteen sacuudiya aan ognahay si loo joogo inay sameeyaan isbuuc lagu magacaabo isbuucii sheekh maxamed ibn cabdilwahaab isbuuc ibn cabdilwahaab isbuuc dhan loo xafladeeyo taaba daliil looma hayo aayadna looma hayo xadiisna looma hayo ibn cabdilwahaab in loo xafladeeyo nabi maxamed oo ka khayr badanna la diida ixtifaalkiisa miisaan sax ma aha marka sidaa daraaddeed qolyaha diidanna hana ixtiraamaan qolyahana qabto adiladeenaan u haysanaa ee noo banaynayso in loo ixtifaalo sidaa daraaddeed marka ummadda soomaaliyeed waan u tahniyadaynayaa mawlidka nabigana calayhi salaatu wasalaam in loo ixtifaalana waxaan rajaynayaa ajir inay ka helaan oo qofkii farxaddaas kaliya ka qayb galana oo waa ogtihiin hal maalin uu ku farxay abulahab inuu ilaahay naartaas halka maalin isniin uga badbaadiyey qof muslim oo ku farxay dhalashadii khayru khalqillah calayhi salaatu wasalaam oo salligiisa badsaday waxaa loo rajaynaa inuu badbaado dowladdeena marka waxaan leeyahay soomaaliya iyo yacni wixii ag yimaado somaliland jubbaland jabuuti wixii intii af soomaaliba taqaano madaxdeena waxaan ugula talin lahaa maalintaas mawlidka haddii ay weyneyn karaan ay dadka fasixi karaan si muslimiinta dhan u wada farxaan oo firaaqa loo helo loo ixtifaalo iyagana waxay u noqon lahayd ajir imaam abulfaraj ibn aljawziy wuxuu oran jiray inahu amaanun fi dalika alcaam wa bushraa caajila binayli albugyati walmaraam xafladda mawlidka la sameeyo waxay ammaan u tahay sanadkaasna ilahay ammaan ku siinaa fadligii nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo bishaaray tahay si muraadkii lahaa loo gaaro oo nabigeena calayhi salaam markii saxaabigii yiri salligaagan badsan wuxuu yiri hadda salligayga majliskaaga ka dhigatid dunuubtaadan waa la cafin murugtan ilaahay wuu kaa saari marka dhibaatooyinkan aan ku jirno soo ilaahay noogu saaro maalintaas aan badino salliga nabiga ducana aan raacsiino imaam abu sulaymaan ad-daarani wuxuu yiri haddii rabto ilaahay inuu ducada kaa aqbalo salliga nabiga horta ka bilow kadibna ilaahay bari kadibna salliga ku khatim ilaahay subxaanahu wa tacaala ma lumiyo salligii nabiga dhulka ma tuuro ilaahayna wuu ka sareeyaa wax u dhaxeeya salligii labada sali nabiga inuu dhulka ugu tago inuu tuuro labada sali nabiga waxay xambaarsan yihiin waa la xambaari ducada waa la xambaari marka ummadii in loo duceeyo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala amaan iyo istiqraar iyo ma aragti deganaash iyo xasilooni iyo khayr iyo barwaaqo inuu wadankeena noogu dhigo oo qulubtii muslimiintana isku soo duubo marka dowladda waxaan ugula talin lahaa hadday awoodo maalintaas inay dadka fasaxdo fasaxaas dadka ha wada siiso ha la xafladeeyo aan aragno waan jeclaan lahaa macal madaxweynaheena barakaysan ilaahay khayr ha siiyo maxamed
farmaajo iyo khayra iyo dadkii la shaqeeyo oo dhan iyagoo masaajidadii ka qayb galay iyagoo tagay ee mawlidkii nabigan calayhi salaatu wasalaam ka qayb galay inay noo soo gudbiyaan aan daawan aan ku faraxna annaga muslimiinta inay farxad u noqoto annaga niyadda noogu dhisanto aad ayaan u jeclaan lahayn taa haddaysan awoodin inay fasaxaas sameeyaan cala alaqal hal mar xataa miidiyaha ama baraha bulshada ha soo istaagaan ummadda ha u tahniyadeeyaan mawlidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ummadda islaamka muslimiinta soomaalida u tahniyadee dhalashadii nabiga calayhi salaam ee farxadda loo farxsan yahay sida madaxdeedii horeba ay samayn jireen nuurudiin zanki iyo malik almudafar iyo oo xataa ay yiraahdeen markii ka sheekanaya sir aclaam xaafid adahabi iyo ibn kasiirbo يعني maadaama nuurudiin zankina uu samayn jiray mawlidkii nabiga dagaal walba ku guuleysan jiray lagama adkaan jirin marka haddii aadan awoodin dadka u tahniyaday taa haddii aadan awoodin muslimiinta inaa u tahniyadaysid kuwa sameynaya ixtifaalka mawlidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ku dadaal ammaankooda in la ilaaliyo inaan lagu xadgudbin waan la soconnaa wixii ka dhacay siinaa masar qolyihii masaajid isugu yimid oo suufiyiinta ah maalinta jimcada ahayd in lagu soo weeraray masaajidkooda ilaa 300 qofood in gaaraysan laga dilay in intaa la egna la dhaawacay sababtana waxaa la yidhi dadkan salaada kadib waxay samayn lahayn mawlidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam marxaladda ayaa la marayaa marka haddii dadka aad fasixi weyday adigiina aad ka qaybgeli weyday adigiina aad tahniyadayn weyday waxaad ku dadaashaa keliya dadka ixtifaalka mawlidka samaynayo inay ammaan helaan bandhigyada dadka awoodda maanta u leenahay soo bandhigaan waa jeclaan lahay inay noo soo duubaan meel walba Soomaaliya xafladaas ka dhacayso aan anagana daawano aan ku faraxno ajirna aan ka helno adinkana ajir ayaad ka helaysaan marka muslimiinta Soomaaliyeed oo dhan waxaan leeyahay mawlid barakaysan Ilaahay ha noogu dhigo sanadka dambana Ilaahay amaan iyo khayr ha noogu gaarsiiyo jazakumullahu khayran wa barakallahu fiikum wa salaamun min Allah alaykum wa rahmatun min ladunhu wa barakatuh